بسم الله الرحمن الرحيم حلقدان وحلقدي لباد دروستين كساب سنة حجك عمرة من تجب عليه فريضة الحج وكما قفك أي كواجبيسو فريضة واجب كان حجك أو شنطة تيرو أركان الإسلام ككمدة waxa ay ku waajibaysaa qof kasta oo shuruudahan laga helo al-islaam qofku inuu yahay qof muslima labo al-aqlu qofku inuu yahay aaqil oo aqli uu leeyahay marka aan leenahay qofku aqli waa inuu leeyahay halka waxa ku baxaya majnuunkii qofkii waalna xajku ma waajibay saddex waxa tooy ku waajibaysaa al-buluugh qofkii intuu qaan gaaray baariq ah marka aan leenahay baariq iyo qof qaan gaarayna waxa halka ku baxaya sabigi ilmihii yara marka ilmaha yar hadii waalidkii isagoo yar u xajisiyo xajkii waa ka dhacaya laakiin markuu gaaro qaan gaar alayhi hajjatul islaam xajkii islaamka laga rabaa mar labaad afar waxa kale to ayadana muhiim oo qofka shardi oo laga rabaa al-hurriya inuu xor yahay markaan leenahay qofkan waa qof xor ah waxa halka ku baxaya qofkii adoonka ahaa adoonkii isaguna sidoo kale hadii uu xajiyo xajkiisi waa laga gudoomayaa laakiin markii uu xor noqdo alayhi hajjatul islaam xajkii islaamka laga rabaa sidii sabigii oo kale shan waxa shardiga shanaad ugu dhameeya qofka laga rabaa xajka ay ku waajibayso al-istitaa'a qofkii inuu kari karo istidaacadaasi marka labaynu u kala qaybeynayna istidaacatu bin-nafsi wal-istidaacatu bil-ghayr qofku naf ahaantiisa inuu kari karo sida zaadkiisi sida jidkiisi sida amnigi sida dhaqaalihii sida intuu maqan yahay reerayowgiisa ama reerkiisa inta uu ka maqan yahay wixii lagu nafaqayn lahaa inay haystaan waxyaabahaas oo dhan waxay noqonaysaa istidaacatu bin-nafs استطاعة بالغير وحي نقريسا قف كان لا قدر الله ولا سمح الله وقف جرن وكله أما عذر بو قباء للرجينين قف كاسي إنو كبك سودو أما ما يوقف داء أو هرم أو وين صورة قل أيسان وهين إنو صفراء أو سو حجي عماشا سمايو هبكاس مركا وحاجرة إلا السمايو وحليدا حج البدل قف كلاته أيا نائب ونقنية قف كلاته أيا وحجنية حجك السنة إن شاء الله تعالى تامبو النقنية قضب كاوحن قصي طلابنا قضب كلاته اللي يرادو مواقيت الحج حجكو وحليه هي وقتيه ذا مرك الله بينه وكلا قاضينا مواقيت الزمانية وقتي زمن كعلقا iyo mawaaqiitul makaniya waqti wuxuu ku calaqan yahay boos iyo makaan la soo marayo oo qofkii waajib ay ku tahay labadaba marka xajka waa leena ka raba ilaahi quraankiisa wuxuu ku yiri isagoo ka waramaya mawaaqiitu zamaniyada الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إلهي وحيري حجكو وبلو لا يقانو او معلومه قفكي marka waajibiya xajkii inuu guto bilaha dhexdooda lama rabo inuu la yimaado hadal tiro lama rabo inuu la yimaado daaca ka bax lama rabo inuu la yimaado dood xajka dhexdiisa saddexdaas marka waxaynu ka aragnay bilood oo ilaahay quraanka uu ku sheegay inay yihiin bisha shawaal inay yihiin bisha ذو القعدة يهين طبعاً كمال موضوع وهو الرئيسة بشد الحج بلها سنوحة ليرى أشهر الحج وحكى له مواقيت حجك أوليه كمذا مواقيت المكانية ميقات يوقتي لو قلت لك لقفكم ميل مركو يمادو إنو حجكي أم عمردي كل واقو نبي محمد نواحد مكهر هذا ميل دي الحليفة اللي يرادو وكو ميل جحفة اللي يرادو أما الرابق والبو ميل قرن المنازل اللي يرادو أما قرن الثعالب وصدح ميل يلملم اللي يرادو وميقات كاليتو ميل كاليتو اللي يرادو ذات عرق وربا ذات عرق قاس نبي محمد إنو أصليي أو نبي محمد صلى الله عليه وسلم سندي سيئي تهيبال الرجينية
ذو الحليفة وميقاتك أي كسو قلان أهل المدينة حرمك إيا مكانه وحي أجرتا أفر بقول إيا صدن كيلومتر ومركي تقريبا تدباتنايا كيلومتر آتكتما دودينا عن مدينة أو حق مكاءت سوادو ذو الحليفة مقالة رابط ليرادي أهان جرتي أهل ميقاتك وحا كسو حرن ميقاتك وحا كسو حرمانيا dadka shaam ka yimaada shaam waa jordan falastiin syria iyo lubnaan iyo dadka ka imaanaya masar iyo dadka ka imaanaya maghrib al-arabi ayaguna halkaas bay ka soo xarmanayaan waana meel 183 kilomitir u jirta magaalada Makka saddex waxa miiqaadiyada nabi maxamed xadeeye kamida qarn al-manazil ama qarn al-tha'arib maantana loo yaqaano السيل الكبير ميقاتك وحا كسو حرمانيا دادك نجد كيماده iyo khaliijka sida imaaraadka sida Oman sida Qatar iyo wixii la halmaala dadkaasi ayaa halka ka soo xajinaya waana meel 75 kilomitir u jirta magaalada Makka waxayna u dhaxaysaa magaalada Taif oo caasimadda labaad oo mamlakada al-Arabiya Sacuudiya iyo magaalada Makka marka Makay waxay u jirtaa 75 kilomitir afar waxa miiqaadka kale nabi maxamed xadeeye miiqaadka la yiraahdo yalamlam miiqaadkaasi waxa ka soo xarmanaya dadka reer Yemen waxa ka soo xarmanaya dadka Soomaaliya waxa ka soo xarmanaya dadka Tihaama ka yimaada iyo saaxilka iyo baddaasi halkaas dheeraran sida dalka Indonesia sida dalka Malaysia sida dalka Siin iyo Hindiya iyo sida dalka Hindiya iyo غيرkood waxay u jirtaa yalamlam markaad u fiiriso Makka 130 kilomitir bay Makka u jirtaa dhinaca koonfur miiqaadka ugu dhameeyo daati cirqi la yiraahdo oo la isleeyahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa uu xadeeyay waa miiqaat ahli al-Iraq miiqaadka ahli al-Iraq waxay ka jirtaa magaalada Makka dhinaca waqooyiga 110 kilomitir ayaa ay ka jirtaa waqooyiga Makka waxaana halka ka soo xarmanaya dadka reer Iraq حديث بان نبي محمد كعدي صلى الله عليه وسلم وبخاري ومسلم أوريان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وحيري أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد وقت لأهل المدينة ذكر غير مدينة وحو وقتيي ومال وقدق كسو حرمدان ذي الحليفة ولأهل الشام وحو أهدي وحو حدي جحفة ولأهل النجد غير نجد رسولك وحو حدي قرن المنازل ولأهل اليمن غير يمن الرسول كوحو حدي يلملم مركاسا نبي محمد وحيري هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن أيغا اسكالم لها سلحدي يقف والبؤو يماذا وإيغا غير كودا وجد كودا كيماذا ممن أراد الحج والعمرة وقف حج عمرة ربين وقتاه ومن كان دون ذلك قفك ميقاد يدا إنه شاكنا كسوس كمرة أو حق مدينة كسوحقة من حيث أنشاء نبي محمد وحرميش وكبلا بنيا أيو كتل بيسنيا هل كاسو كحر منيا حتى أهل المكة من مكة حتى غير مكة مكة حدادة كحر منيان وميقاد كودي والمقونيا